Guddiga ku-meel-gaarka ee loo xil saaray soo diyaarinta saameynta cudurka COVID-19 oo uu ku yeeshay dalka ayaa maanta oo Arbaca kulan ku yeeshay xarunta shirarka Golaha Shacabka ee Villa Hargeysa. Guddigan oo ka kooban 9 xubnood oo uu magacaabay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa kulankooda waxay uga hadleen qorshe hawleedka guddiga COVID-19 u yeeridda hay'adaha caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Xubnaha guddiga ayaa waxay shaqadoodu tahay xog ururinta, wareysiga hay'adaha iyo qaybaha kala duwan ay khusayso arrintani ilaa intii suurtagal ah ee la gaari karo. Waxaa sidoo kale guddigan laga doonayaa diyaarinta warbixino dhammaystiran oo ku saabsan natiijada ka soo baxday xog ururinta. Wasaaradda Caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday in dalka uu ku soo labakacleeyay cudurka COVID-19, waxaana labadii toddobaad ee la soo dhaafay la diiwaan geliyay 150 ruux, waxaana guud ahaan tirada dadka Soomaaliyeed ee laga helay cudurka COVID-19 ay gaaraysaa 4,382 qof. Waxaana sidoo kale cudurka COVID-19 ka dhashay saameyn dhaqaale oo soo wajahday dowladda Soomaaliya, maamul goboleedyada, ganacsatada Soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada.